sanadadii u dambeeyay dawladda Shiinuhu waxa ay dadaal gelisay dhaqaalaha dalalka Afrikaanka ah in ay dhex qulqusho iyada oo dalal badan oo Afrikaan ah ku maalgelisay mashaariic $100 milyan oo dollar ku kacay qaar ka mid ahna ay u soo rartay warshado iyo mashiino teknoolojiyadoodu ay sareyso iyada oo uga dan leh awoodaha reer galbeedka inay kula tartanto khayraadka qaaradda madow haddaba sida xeeladayaashu ay tibaaxayaan arrinka warwarka leh waxa uu yahay in maalgashiga Shiinuhu ay halis muglihi ku lamaan yihiin waxa ay tibaaxayaan Shiinuhu si ula kac ah in uu ugu talagalo dawladaha Afrikaanka ah in uu ku hafiyo deymo ay adag tahay inay iska soo celiyaan marka deyntii iyo faa'iidada dulsaarka ahayd ay iska soo celin kari wada dawladda Afrikaanka ahna Shiinuhu wuxuu la wareegayaa ilaha dhaqaale ee halbowlaha u ah dalkaas The Jubilee Debt Campaign oo ah hay'ad kormeer dhaqaale oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriisku waxa ay sheegtay 20% ka mid ah deynta dalalka Afrika lagu leeyahay in dalka Shiinuhu uu ku leeyahay isu geyn ahaana waa deyn ka badan deynta madax bannaan ee Afrika ay ku leeyihiin dawladaha kale ee shisheeye shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee bishii September ee 2018 lagu qabtay magaalada Beijing ayaa madaxweynaha Shiinuhu ku dejiyay maalgashi iyo deyn dhan $60 bilyan oo dollar oo dheeraad ah oo qaaradda Afrika loogu talagalay taas oo muujinaysa qulqulka maalgelineed ee Shiinuhu sanadada soo aadan in aanu hoos u dhici doonin saameynta taban ee ay leedahay deynta sii kordhaysa ee Shiinuhu ku leeyahay dalalka Afrikaanka ah dhabahantii waa arrin walaac ciise leh oo ay suurtagal tahay mar kale qaaradda Afrika inay ku dhacdo gumaysi siyaasadaysan haddaba waxa isweydiin mudan sidee ayuu maalgashiga Shiinaha ee Afrika u noqday dabin uu dawladaha ku ugaarsado la wareegista Shiinuhu uu la wareegay dekedda Mombasa ee dalka Kenya bishii November 2020 wargeyska African Stand waxa uu sheegay in Kenya ay halis ugu jirto in ay weydo mid ka mid ah hantideeda istiraatiijiyadeed ee ugu muhiimsan deynta Shiinuhu ku leeyahay awgeed dhowr bilood kadib Shiinuhu waxa uu bilaabay inuu u dhaqaaqo la wareegista dekedda Mombasa kadib markii ay Kenya ku guuldareysatay inay dib u celiso deymihii faraha badnaa ee ay ku lahaayeen deynbixiyaasha Shiinuhu waxa uu dawladda Kenya amaahiyay lacag gaadhaysa $5 bilyan iyo $500 milyan oo dollar oo ay doonaysay Kenya inay ku horumariso waddo tareen oo isku xidha magaalada Mombasa iyo caasimadda Nairobi Kenya ayaa lagu qasbay inay rahanto oo Shiinaha ay ku wareejiso dekedda ugu weyn uguna muhiimsan dalka oo ah dekedda Mombasa la wareegista Shiinuhu dekedda Mombasa uu la wareegay waxa ay saameyn taban ku yeelatay dhaqaalaha Kenya maxaa yeelay kumanaanka shaqaalaha ee dekedda ka howlgala waxa ay ku qasbanaan doonaan inay ka hoos shaqeeyaan howlgeliyaal Chinese ah sidoo kale wax soo saarka dekedda waxa si toos ah loogu diri doonaa dalka Shiinaha ilaa inta ay ka dhamaanayso deynta Kenya lagu leeyahay Kenya waxa ay sidaa ugu biirtay dalka Sri Lanka oo sidoo kale Shiinuhu uu hore ula wareegay mid ka mid ah hantidiisa istiraatiijiyadeed ee qaran Sri Lanka waxa ay si rasmi ah uga tanaasushay lahaanshiyaha dekedda istiraatiijiga ah ee ku taala xeebta Hambantota waxa ay lahaanshiyaha dekedda ay ka tanaasushay muddo 99 sanadood ah kadib markii ay ku guuldareysatay inay bixiso deynta uu Shiinuhu ku yeeshay oo dhammayd $1.1 bilyan qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka falanqayaha siyaasadda Kenya Atongo Mohamed ayaa ku tilmaamay la wareegista Shiinuhu uu la wareegay Mombasa inay tahay natiijo la filayay oo qayb ka ah istiraatiijiyadda dabinka deymaha ee Shiinaha isaga oo yiri dalalka deynta ka qaata Shiinuhu inta badan waxa ay deynta iskaga bixiyaan hantida muhiimka ah ee dalkooda Riboodka caalamiga ah ee Zambia waxa uu ku jiraa gacanta Shiinaha September 2020 Zambia waxa gacanteeda ka baxay madaarka caalamiga ah ee Kenneth Kaunda oo Shiinuhu kala wareegay kadib markii ay iska bixin kari waayeen deynta Shiinaha ee ku biirtay waxa la filayaa sidoo kale shirkadda Zesco oo ah shirkadda tamarta ee Zambia inay ka mid noqoto hantida uu Shiinuhu la wareegi doono sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay African Confidential dawladda Zambia waxa ay Shiinaha kula jirtaa wada hadal ay isku dayayso in ay ku qanciso in aanu la wareegin shirkadda Zesco walaayada ugu weyn ee haysta hay'adda lacagta adduunku waa istiraatiijiyadda Shiinaha oo dhigaysa in marka hore dawladaha lagu dhiirigeliyo deynta qaadashadeeda kadibna lala wareego hantida qaranka ee istiraatiijiga ah marka ay deynta iska bixin kari waayaan wargeyska Zambia laga leeyahay ee Lusaka Times cadadkiisa ku taariikhaysan 24 Febraayo 2019 waxa uu yiri dhacdadani wala wareegista riboodka waxa ay ka dhigan tahay khasaarihii ugu weynaa ee dalka soo gaaray madaxbanaanida kadib tan iyo markii madaxweyne Edgar Lungu uu la wareegay talada dalka Zambia dalkiisu waxa uu saxeexay
ugu yaraan 8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo maalgelin ahaan uu uga qaatay dalka Shiinaha. dadka arrimahan u kuurgalana waxa ay aaminsan yihiin in wasaaradda maaliyadda ee Zambia aanay awood u lahayn inay iska bixiso deymaha intaa leeg, taas oo kor u qaadaysa suurtagalnimada in la wareego hanti kale oo qaran oo Zambia ay leedahay. Djibouti oo suurtagal ay tahay deynta Shiinaha inay dhibano u noqoto. Djibouti waxa ay xuduun u tahay mashruuca suunka iyo jidka ee Shiinuhu ku himiloonayo. sidoo kale jidka tareenka xawaaraha dheereeya ee isku xiraya Ethiopia iyo Djibouti oo Shiinuhu u maalgelinayo ayaa ka dhigan mid kamid ah qorshayaasha hal abuurka caalamiga ah ee mashruuca suunka iyo jidka, kaas oo isugu jira istiraatiijiyad dhaqaale, siyaasad dibadeed iyo indhasarcaad deymeed. sidoo kale Shiinuhu waxa uu Djibouti ka fulinayaa mashaariic kale oo waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha ah, kuwaas oo ay kamid yihiin shirkado ay dawladdu leedahay oo ay kamid yihiin mashruuca seerayaasha caalamiga ah ee Djibouti iyo dhowr xarumood oo wax soo saar oo la dhisayo. xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u muuqata in ay wado mashruuc ku kacaya 12.4 bilyan oo dollar oo ah barnaamij loogu talagalay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. mashruuca intiisa ugu badan waxa lagu maalgeliyay deymo ka yimid bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee Shiinaha. Shiinuhu dalka Djibouti muhiimad gaar ah ayuu siiyaa sababtoo ah goobta Djibouti ay ku taalo ayaa ah goob istiraatiiji ah. sidoo kale waxa halka ku sugan ciidamo Mareykan ah oo ka kooban 4,000 oo askari. sidaas awgeed Shiinuhu ma rabo Mareykanku in uu noqdo dalka kaliya ee gacanta ku haya marinbiyoodkaas, sababtoo ah danaheeda ayuu caqabad ku noqon doonaa haddii Mareykanku marinbiyoodkaas hayntiisa uu ku kaliyeysto. taasina waxay ku kaliftay Shiinuhu saldhiggii militari oo ugu horreeyay inuu ka samaysto dalka Djibouti, iyada oo Shiinuhu uu sidaa ku jabiyay mid kamid ah mabaadi'dii uu difaaci jiray oo ah dalalka shisheeye ciidan ahaan inaan loo fargelin. dhanka kale 9% kamid ah dadka reer Djibouti waxa ay ku nool yihiin faqri iyo saboolnimo, halka 42% kamid ah ay ku nool yihiin faqri aad u daran. waa sida ay sheegtay hay'adda cunnada adduunka ee WFP. dadka dalka ku nool waxa lagu qiyaasaa 1 milyan oo qof. xoolaha ayaana 3 meelood meel dadka reer Djibouti kamid ah u ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan. waxa ayna Djibouti soo dhoofsataa 90% kamid ah baahideeda cunteed. hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa warbixin ay soo saartay sanadkii 2017 ku tiri deynta guud ee Djibouti oo qaybteeda libaax Shiinuhu ku leeyahay waxay kor uga kacday 50%, waxaana gaadhay 85% GDP-ga labadii sanadood ee la soo dhaafay. bishii December ee la soo dhaafay, hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa dhaleecaysay dawladda Djibouti oo si ka fiirsasho la'aan ah ugu dhacday dabinka deymaha Shiinaha. Soomaaliya oo qolka ugu jirta deymaha Shiinaha. Soomaaliya iyaduna sidoo kale bishii December ee 2019 bangiga Exim ee Shiinaha laga leeyahay ayaa ku dhawaaqay inuu heshiis ku bixinayo deyn qiimaheedu dhan tahay 200 milyan oo dollar oo dib loogu dhisayo dekedda magaalada Muqdisho. taabadalkeedana bangigu waxa uu xuquuq kalluumaysi oo gaar ah uu ku yeelan doonaa xeebaha Soomaaliya. sidoo kalena waxa uu sii haysan doonaa lahaanshiyaha qayb kamid ah dekedda magaalada Muqdisho ilaa inta laga bixinayo deynta oo dhameystiran. xeebaha Soomaaliya ayaa caan ku ahaa burcadbadeednimada oo si joogto ah looga afduuban jiray maraakiibta, balse hadda arrintu way isbedeshay, waxaana xeebaha Soomaaliya oo hodan ku ah kheyraadka badda ay noqdeen kuwa u nugul damaca Shiinaha ee aan xadka lahayn. marka la eego xaaladda dagaalka ganacsiga ee caalamiga ah, reer galbeedku il cabsi iyo taxadar leh ay ku eegayaan xiriirka soo ifbaxaya ee Shiinaha iyo Afrika u dhaxeeya. tusaale ahaan, Yurub waxa ay u aragtaa in saameynteedii dhaqaale ee ay ku lahayd inta badan dalalka Afrika uu hoos u dhac weyn ku yimi, halka markii hore ay ka ahayd qaaradda ugu tunka weyn leh ee uu ganacsi wada kala dhaxeeyo qaaradda Afrika sanado badan. ka hor inta aanay wadamada qaaraddu bilaabin inay kordhiyaan isdhaafsiga ganacsi ay la leeyihiin dalka Shiinaha. daraasad ay samaysay wakaaladda Mareykanka ee McKinsey ayaa tilmaamaysa in ka badan 1,000 shirkadood oo Shiineys ah inay hadda ka howlgalaan qaaradda Afrika, waxaana wararku qaar ay sheegayaan in 2,500 oo shirkadood oo Shiinaha laga leeyahay ay ku sugan yihiin qaaradda Afrika, kuwaas oo 90% ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay. iyada oo isla daraasadani ay sheegtay inay filayso in qiimaha faa'iidada maaliyadeed ee Shiinuhu uu ka helo qaaradda Afrika sanadka 2025 ay gaari doonto 440 trilyan oo dollar, taasoo ka dhigan koror ahaan 40% inay korodhay. si uu gaaro yoolal siyaasadeed oo badan, mashaariicdiisa horumarineed Shiinuhu waxa uu la beegsadaa dalalka ay ka taliyaan madaxda kale taliska ah ee musuqmaasuqa lagu eedeeyo,
si ay uga faa'iidaystaan xaaladaha dalalka ugana fogaadaan garsoor hufan oo howlahooda soo farageliya sidoo kalena ay faragelin ku yeeshaan arrimaha siyaasadeed ee dalkaas. arrinka walwalka laga qaba ayaa ah xaaladda heshiis ee u dhaxaysa madaxda Shiinaha iyo madaxda Afrikaanka ah ee musuqmaasuqa hadheeyay. iskaashigan dhaqaale ee u dhaxeeya labada dhinac waxay u badan tahay Shiinuhu inuu ujeedo siyaasadeed oo fog uu ka leeyahay Afrika, taas oo khatar gelinaysa rajada horumarineed ee mustaqbalka. halka Shiinuhu dhankiisa uu aaminsan yahay in ka faa'iidaysiga kheyraadka Afrika gaar ahaan macdanta iyo tamartu ay tahay maalgelinta dhaqaale ee uu qaaradda ku sameeyay, aanay ahaynna wax uu lacag la'aan ku helay balse uu hantidiisii u horay oo dhaqaalihiisii uu geliyay. hase ahaatee xaqiiqadu waxay tahay Shiinuhu inuu ka faa'iidaysanayo xaaladda musuqmaasuqa ah ee qaaradda ka jirta isaga oo dalalka qaaradda ku hafinaya qandaraasyo maalgashi oo waaweyn, taas oo halis ku ah qarannimada, dhaqaalaha, madax bannaanida iyo kheyraadka qaaradda ee mustaqbalka fog.